guddoonka golaha xubnaha baarlamaanka golaha bahda saxaafadda howlwadeennada golaha waxaan mar labaad ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan halka ka soo jeedinaynaa warbixintii guddiga arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga mudanayaal muddadii u dhaxaysay labada kala fadhi 46 47 ee hadda socda duruufo jira awgooda ka mid ah caabuqa COVID-19 ma suuro gelin in guddigu sameeyo safarro iyo kormeero gobollada iyo in la booqdo xarumaha wasaaradda iyo hay'adda haddaba warbixintan oo kooban wuxuu guddigu ka diyaariyey warbixinadii ay soo gudbiyeen wasaaradda iyo hay'adda ay wada shaqaynta leeyihiin iyo kulanno xusub waraysi ah oo guddigu la yeeshay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dowladda Puntland waana sidan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta waxqabadka wasaaradda ee bilaa June ilaa September 2020 waxaa guul laga gaaray dhismaha golaha deegaanka degmooyinka Galdow iyo Karaaxo labo waxaa la furay mashaariic horumarineed gaaraya 15 mashruuc waxaan laga hirgeliyay degmooyinka Garowe Galdogob Gaalkacyo Bursaalax iyo qaybo ka mid ah deegaamooyinka kale ee Puntland saddex waxaa ballaarin iyo dayactir lagu sameeyay xarunta dhexe ee wasaaradda ay ku leedahay Garowe waxaana sidoo kale dayactir lagu sameeyay xafiisyada guddoomiyaasha gobollada qaarkood lambar 4 waxaa la qabtay wacyigelin ku saabsan hirgelinta nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka daahfuran oo ka garab socda baahinta maamulka 5 waxaa 12 degmo laga fuliyay talooyin caafimaad iyo wacyigelin joogto ah oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa cudurka safarka ee COVID-19 6 waxaa la qabtay leelan taageero shirarka dawladda qorshayaasha hortabinta leh ee wasaaradda lambar 1 diyaarinta isku dawladka wafti ka imanaya maamulka Galmudug oo booqanaya degmooyinka Boosaaso Qardho iyo Garowe laguna barayo hanaanka ay u shaqeeyaan dowladaha hoose ee Puntland lambar 2 qabashada shirar lagu xoojinayo isdhexgalka nabadeynta iyo dib u kulamada lagu xoojinayo fahamka guud ee arrimaha federaaleynta 3 kormeer shaqo ay wasaaraddu ku sameysay degmooyinka qaar ka mid ah lambar 4 dhisidda golayaasha deegaanka qaar ka mid ah ee degmooyinka Puntland 5 waxa wasaaraddu dhameystiraysaa siyaasadda iyo habraaca xadaynta soodimaha degmooyinka Puntland 6 waxa wasaaraddu dhameystiraysaa siyaasadda barakacyaasha iyo sharciga dhulka caqabadaha jira habsami socodkii shaqooyinka shirarkii qorshaysnaa oo uu saameeyay caabuqa COVID-19 2 dhaqaalaha wasaaradda ugu jira miisaaniyadda oo aan ku filnayn hawlaha iyo qorshayaasha wasaaradda hay'adda maareynta masiibooyinka Puntland ee hadma waxqabadkii June ilaa September 2020 iyadoo laga duulay kortaga iyo wacyigelinta bulshada ee caabuqa COVID-19 waxaa la sameeyay wacyigelin wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo idaacadaha telefishinada boorar iyo idaacadaha wareegta waxaana la wacyigelinta la gaarsiiyay 6 gobol 9 degmo 61 tuulo iyo 6 kaabamka barakacyaasha lambar 2 waxaa la dhisay guddiyada digista iyo wax ka qabashada halista aafada heer tuulo iyadoo lala kaashanayo mashruuca oo adkeysiga aafooyinka kaas oo ay ka howlgalayaan hay'adaha kala ah CARE SEF Oxfam iyo World Vision kuna wajahan xoolo dhaqatada iyo beeraleyda 3 waxaa dadka looga digay waxyeelada roobabka guga iyo dayrta soo socotay May ilaa October 2020 4 soo bandhigida xogta baahida guud ee gargaarka aadamiga hay'adaha caalamiga ee Puntland ka howlgalay dawladda 5 oo qareemida dadka nugul ee Puntland ee gargaarka u baahan 6 waxaa la sameeyay sahamadii guga kadibna waxaa loo qaatay waxaana ka qayb qaatay wasaaradaha kala wasaaradda arrimaha gudaha qorsheynta xanaanada xoolaha wasaaradda deegaanka iyo beeraha iyo hay'adaha UN-ta iyo NGO maxalli ah 7 ayuhu waxyeello ballaaran u geystay inta badan deegaanada Puntland inkastoo wax laga qabtay misana wali raadkiisi waa taagan yahay qorshayaasha hortabinta leh hay'adda hadma 1 sahanka guud ee la socodka saameynta xil roobaadka 2 abaabulidda iyo ka qaybgelidda shirarka lagu falanqeynayo ama lagu qoondeynayo gargaarka aadamiga 3 sahanka la socoshada xaaladda guud ee baahida gargaarka gobolada la gaarsiiyay 4 qabashada shirar xiriirinta hay'adaha gargaarka 5 kormeerka iyo dabagalka deeqaha la bixinayo socda 6 soo bandhigida xogta baahida guud ee gargaarka aadamiga ah hay'adaha caalamiga ee Puntland ka howlgalay dawladda 7 oo qareemid dadka nugul ee Puntland ee gargaarka u baahan lambar 8 qabashada aqoon isweydaarsi dhibaatadii ay reebeen daadadkii daadadka abaaraha iyo fatahaadaha caqabadaha jira 1 caqabada ugu weyn ee hay'adda haysataa waxay tahay in wasaaradaha qaarkood ay sheegtaan kuna qabsadaan
xilkeedii sharcigu u dhigayay arrimaha gargaarka degdega ah iyo maareynta masiibooyinka halkii ay mas'uuliyad wadareed la wada gudan lahaa lambar 2 qaab dhismeedka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta inay ku darsatay waax cusub oo loo bixiyay waaxda maareynta masiibooyinka Department of Disaster Management iyadoo hay'adihii u xilsaarnaa ay shaqaynayso taasoo ka hor imanaysa sharci lambar 10 soo baxay 15 November ee bishii 9aad 2005 sharci lambar 19 ee 9 bishii 3 2005 iyo sharci lambar 4 ee soo baxay 15 bishii 2005 taasoo burinaysa taasoo abuuraysa buuq iyo isbarbaryac lambar 3 waxa hay'adda laga rabaa inay gobolada Puntland oo dhan ka warhayso meeshii wax ka dhacaan inay isdul taagto gaadiidna ma lahan ma haysato meeshii wax ku dhacaanna ay isku dul taagto gaadiidna ma lahan gaadiid la'aan iyadoo dhaqaalaha la siinayaa kaabi karin 4 miisaaniyadda mushahar iyo adeeg hay'adda la siiyo oo aan hal safar ku filnayn $4,200 oo aan isbedel marna lagu samayn intii dhisnayd hay'addu oo 16 sano ah lambar 5 hay'addu waxay heshay sanadkan 2 bilood adeegood oo kaliya taasoo caqabad weyn ku ah hawl socodsiinta hay'adda tala soo jeedin mudanayaal guddigu wuxuu ku tala bixinaya arrimaha soo socda 1 in la helo qoonda miisaaniyadeed oo ku filan hawlaha iyo qorshayaasha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta iyadoo lagu saleynayo baaxadda shaqo oo aad u weyn lambarka ku xiga in la kala cadeeyo mas'uuliyadaha iyo waajibaadka hay'adda hadma iyo wasaaradaha si aysan u dhicin in la isku qabsado shaqooyinka iyo mashaariicda la xiriira arrimaha gargaarka bini'aadanimada lambar 4 in qoondada miisaaniyadda hay'adda hadma kor loo qaado si ay ugu sahlanaato gudashada waajibaadka shaqo ee la xiriira inay si degdeg ah u gaaraan meel kasta oo masiibo ka dhacdo ama u baahan gargaar degdeg ah loona helo gaadiid lambar 5 in la helo adeega hay'adda oo dhameystiran sanad walba mahadsanidin